odayaasha deegaanka Camuud oo shir jaraa'id maanta ku qabteen magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa waxay si adag uga hadleen xuduudaha dhulka jaamacadda Camuud iyaga oo sheegay in jaamacadda Camuud ay shakhsiyaad gaar ah lahayn balse ay leeyihiin bulshada Soomaaliland oo dhan odayaashaasi oo arrimahaasi ka hadlayana waxa diladoodii kamid ahaa beertu Camuud saddex waxaan doonaynaa inanka yar wuxuu tabasho ah ee dhibaato ah ee jira in anagu wada hadal ku dhamayno wax doonayna aflagaada wax doonayna buuqa cidda doonaysa beertani in soodinteeda cadayso ay hubsatana inay noo yimaadaan oo anagu isla taabano oo hadii beertu qaldantahay aan qaladkeeda taabsino hadii beerta laga qaldan yahay qaladkeeda taabsino doonayna hadda marka waxaan doonaynaa in hadii Ilaahay yiraaho ka yar la xiray ee xiran waxa la waxay wadada gobolka ood buu dhigay ooda silifteeda waxaan doonaynaa inuu si wada hadal u dhamayno oo anagu galno hadii khalad lagu hayo iyo hadii sax lagu hayaba in Camuud ka hadasha waajiba nimankan ka hadlaya fiidiyay hele maaragtay beeraha naga qaadanaya maxay dahayaa kumay dhalin Camuudna warkama hayaan waxna kama garanayaan marka waxa weeyaan runtu waxay tahay dadka wax ka garanaya ee beerta wixii dulmi lagu hayo iyo wixii khalad lagu sameynayaba ogi waa Camuud dhulkan hawl damcayaana waa dhulkii jaamacadooda wax soconaya ma jaamacadan waxa iska dadweynaha ee reer malaha waxaan leenahay haddii aan nahay deegaanka reer Camuudeed waxaan leenahay beerta Ilmashide Axmed waxay ka mid tahay deegaanka Camuudeed Camuud bay xala leedahay jaamacadana wax dheeraad u male iyaduna wax dheeraad oo xad bay beeru leeyihiin Camuud ku yaal inta xadka la wadaagta jaamacadda bay ka mid tahay waxaan leenahay haddii ay Camuud tahay haddii aan reer Camuudeed nahay wixii deegaanka Camuudeed leeyahay bay beertaasina leedahay Ilmashide Axmed Mawlid Yaasi Yuusuf oo ah gudoomiyaha deegaanka Camuud oo sayna halkaasi ka hadlay ayaa arinta siyaadkeeyay waxa weeyaan horta meeshan maanta waxaan isugu nimnay inaan ka hadalno miiri laga hadlayay sida darteed oo ay keenaysa wax xumaan oo fuwaaxisha meeshan waa beeshii Camuudeed waxaan imika meesha joogo oo dhani iyo deegaankii odayadeedii beeshani waxay ka mid tahay beertani beesha Camuudeed maadaama beesha Camuudeed ka mid tahay xuduudaha beerahana way leedahay waxa weeyaan miiriyaha laga hadlayay lambar 1 ama professorka la aflagaadeynayna horta waan ka raali gelinaa apologies baan ka bixinaynaa midda labaad miiriya cishadii dhaweeyay ama guddiga jaamacadda qaybi ay ka hadashay ee beerta ay tiri Muuse Xasan ay nacam soo hadal qaadeen taana waan ka raali gelinaynaa sida darteed beertan ina ka jaamacadda meeshan wadada gooyay odayadiisii baan nahay dadkiisii baan nahay maantaana soo deynaynaa isaga oo uu xidhayahay waana soo deynaynaa arrinkana waan galaynaa xuduudda beertu ay martay beeraha la wadaagtana halkeeda ay ahaanaysa markaas sida darteed waxaan leenahay dadka miiriyaha ka hadlaya inay u fiirsadaan waxa jiro oo dhan inay ogaadaan ayaan rabnaa Maxamed Xasan Ismaaciil Bere fogaana raga xorta Star TV magaalada Boorama